xisbiga wadani ee Somaliland ee mucaaradka ah ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee Somaliland iyadoo dhinaca kalena xisbigu uu ka hadlay khilaaf la sheegay inuu u dhaxeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa. warbixinta waxaa Hargeysa ka soo diray wariye Khadar Macalin Deeq. xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta si ballaaran uga hadlay xaaladaha kala duwan ee ay ku sugan tahay Somaliland. afayeenka xisbiga wadani Ibrahim Mahdi Buuba iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani Ahmed Muumin Said iyo mas'uuliyiin kale oo xisbigaasi ka tirsan oo maanta shir jiraayad ku qabtay xarunta guud ee xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sidoo kale ka hadleen khilaaf muddooyinkii ugu dambeeyay ay warbaahinta dalku sheegaysay inuu ka dhex taagan yahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland waxaanay khilaafkaasi ku tilmaameen mid nasiib daraa. sidoo kale xisbiga wadani waxa uu ka hadlay safarka madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaaya uu ku tagay dalka Ingiriiska kaasoo ay sheegeen inaanay wax wara ka haynin ujeedada socdaalkiisa. waxaanay sidoo kale ka hadleen mas'uuliyiinta xisbiga wadani siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland oo ay ku tilmaameen mid gaabisa isla markaana u baahan in wax laga bedelo. afayeenka xisbiga wadani xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba oo arintaasi faahfaahinaya ayaa waxa uu yiri waxaad moodaa arrintii in midmadow fara badan uu hareeyay oo aan odhan karno waxa sabab u ah xukuumadda maanta talada haysa muddadii 2 sano ee barka ahayd ay ka talinaysayna sababtay hoos u dhaca ku yimid dhinaca amniga iyo nabadgelyada. waxa aan tusaale soo qaadan karnaa xiriirkii aan la lahayn beesha caalamka oo aad moodo in muddooyinkii ugu dambeeyay ama intii talada xukuumaddan haysay isbedel weyn uu ku yimid hoos u dhac fara badanna uu ka muuqdo hadday tahay qaabka siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumaddani beesha caalamka oo la xidhiidho hadday tahay qaabkii wada shaqayneed ee sirdoonka qaranka iyo howlaha amniga cidda ku shaqada leh ay wada shaqayn jireen dowladaha naga caawiya waxaa la wada socotaan maanta in khilaaf xoog leh uu ka dhex jiro madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland. waxaa ogtihiin khilaafkaasi inuu gaadhay in madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland uu sii sagootii waayo madaxweynihii dalka oo dalka ka dhoofiyay. waa wax aan cidnaba ka qarsoonayn cid waliba aragto sida la socotaana saxaafadda maalmihii ugu dambeysayba headline-ka kaga soo baxay waxay gaarsiisay khilaafka madaxweynaha iyo ku-xigeenka dhex yaala in madaxda xisbigu hoteelada isku feerfeeraan madaxda xisbigu isku aflagaadeeyaan isku xigtaan ama madaxda xukuumaddan u jeeda ay isku aflagaadeeyaan oo isku feeraan gacantana isla tagaan hoteelada magaalada Hargeysa gudaheeda. arrintaasi shicibkii dadweynuhu daawanaya waana arrin aanay liqi karin dadweynuhuna aanay qaadan karin in talada dadkii ay u dhiibteen ee ay ku aamineen masiirkooda maanta ay dhinacna u hagi kari waayaan oo iyagu isku soo gudda noqdaan taasoo musqaan weyn ku ah guud ahaan jamhuuriyadda Somaliland meeqaankeedina hoos u dhigi karaysa. Khadar Macalin Deeq, Somali Channel, Hargeysa.